waftidan ballaadhan ee ka socotay dowladda Somaliland ee hogaaminayay badhasaabka gobolka Sool ayna weheliyaan maayirka degmada Laascaanood taliyayaasha ciidamada qaranka ee gobolka Sool isuduwayaasha laamaha dowladda iyo ciidanka qaranka Somaliland ayaa gaadhay degmada Boocame ee gobolka Sool iyo deegaano ka tirsan waxaana waftidani si weyn u soo dhaweeyay markii ay gaadheen halkaasi bulshada ku dhaqan degmada Boocame iyo deegaanada hoos yimaada oo watay caleemo qoyan iyo calanka jamhuuriyadda Somaliland sidoo kalena waftidu hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Sool ayaa gaadhay deegaanada Fardidin Karinkarfood iyo xuduudka ugu dambeeya ee dalka Somaliland la leeyahay ka Soomaaliya iyadoona halkaasi lagu soo bandhigay xuduudda ciidanka qaranka Somaliland iyo waftidaba si fariin cad loogu diro cadowga Somaliland iyo cid kasta oo ka xun horumarka iyo nabadgelyada gobolka Sool sidoo kalena waxaa la arkayay waftida uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Sool oo ciyaar dhaqameedka ay ku caanka tahay Soomaalidu la ciyaaraya bulshada deegaanadaasi ay safarka ku marayeen kuwaasi oo ku qaabilay jawi degan oo farxadeed odayaasha iyo bulshada degmada Boocame ayaa si weyn u soo dhaweeyay waftidani waxaanu ku soo dhaweynaynaa halkan wafdi uu hogaaminayo badhasaabka gobolka Sool Cabdikariin Aadan Xaaji Diiriye aad iyo aad baanu u soo dhaweynaynaa soo dhawaada waftida gacmo furan ku soo dhawaada leeyahay wafdiga ballaaran ee uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Sool waxaanu idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaanu idinku soo dhaweynaynaa degmada Boocame waxaan rabaa halkan inaanu ku soo dhaweeyo gudoomiyaha gobolka Sool wafdiga uu hogaaminayo oo ka kooban madaxda saraakiisha ciidamada maayirka degmada Laascaanood dhammaan madaxda wafdiga ah ee inooga timi gobolka Sool waxaan leeyahay soo dhawaada waliba badhasaabka waxaan idin sheegayaa maalintuu yimina waxa go'ay xadhiggii xanibnaa ee gobolka iyo degmada ku xidhnaa waa furtay oo waa go'ay isagaana furay aan ku soo dhaweynaynaa badhasaabka gobolka dhammaan waftida la socota baanu soo dhaweynaynaa haddeer annaga badhasaabka gobolka Sool baa wuxuu noo yahay diirshe weeye isagaanu soo dhaweynaynaa meel walba wuu marayaa sagaalkii bilood oo hadda Laascaanood joogay waxyaalo badan buu ka bedelay oo la yaaban yahay isaga iyo maayirka gobolka Sool waxaanu leenahay diirsayaal soo dhawaada horena u sii socda intuu badhasaabka cusub idin yimi 9 bilood buu joogaan malaynaya bishana ku sagaala waxa weeyaan wax badan asaasi waa kow taariikhdeeda isqorta ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Somaliland uu badarka jirtay ciidanka qaranka militariga maanta waa wax lagu naaloodo dawladda dhexe oo uu hogaaminayo badhasaabka gobolka Sool iyo maayirka iyo waftidiisii awal ciidamada qaranka meesha ku sugnaa isuduwayaasha laamaha dowladda ee gobolka Sool maayirka degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil taliyaha aaga bari ee ciidanka qaranka Cali Barre Xuseen taliyaha qaybta booliska Cali Axmed Shire abaanduulaha qaybta 7aad Ibrahim Ashkir iyo saraakiil kale ayaa dhankooda halkaasi ka hadlay waxaynu ognahay oo ogsoonahay oo maanta inala jooga oo inagu soo noqon doona waa dawladeennii aynu muddada dheer sugaynay waxaa inoo timi maanta waxaa la rabaa labada gamcood iyo ilkahaba inaynu ku qabsanno waxaan rabaa degmada hadalkeeda inaan ku soo koobo halmadda halhayska inoo ahi waa inay noqotaa yaaninna u harin insha Allah waxbaanu ka qabanaynaa waa dhex gelaynaa waa kaantaroolaynaa muxuu ahaay hadday horumarin tahay hadday fidin tahay hadday qalabayn tahay mahad ilaahay ka sugo waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka Sool oo isagu fikirkani ka yimi abaabulkani ka yimi oo gartay in aanu tagno deegaanka Boocame iyo nawaaxigiisa marka labaadna waxaan u mahad celinayaa ciidanka qaranka oo la'aantood aynaan halkan maanta nimaadneen anna aanan imaadeen gudoomiyaha gobolkuna uusan yimaadeen farxadana aynaan wada qaadaneen
marka saddexaad waxaan u mahadcelinayaa shacab weynaha reer boocame oo muujiyey jacaylka iyo yuhuunta iyo qalbiga wanaagsan ay u qabaan dadkii ay wax la lahaayeen dawladdoodii degmadoodii laascaanood gobolkii sool oo gidaar yaroo daciifi kaga gudbanaa inay soo gaadhaan waa iscaddayseen soomaalilannimada inaad caddayseen qiyamkiinna aad caddayseen waxaan leeyahay war halkaa uga sii haya degmada boocame waxaad dirteen oo aannu idinka qaadnay farriin ama masaj baad maanta dirteen taasna waa idinka qaadaynaa xagga nabadgelyada innagu cidna kuma duulayno cidna duulaan kuma nihin nabadgelyo ayaynu ku baaqaynaa oo cid kasta ugu baaqaynaa dariskeenna walaaleheen maamul goboleedka puntland ee soomaaliyeed waxaan leenahay nabadgelyaan ku wada noolaano haddii la odhan jiray laba taga iyo saaka waynu joognaa dad sharaf iyo karaamo leh oo dawladnimada u baahan ayaa aad iyo aad anugu waa iiga muuqda awowayaashay aad baad u mahadsan tihiin sidaad loo soo dhowayseen ee qiimaha iyo sharafta leh waxaan idiin sheegayaa waa sidaa dawladdu u timid bay u joogaysaa hay-adihii dawladda iyo dhanaabkii dawladeed waa sidaa ay saaka aynu isugu nimid bay uga hirgeli doontaa haddii ilaaha yidhaahdo waxaa soomaalidu odhan jirtay waabaa baryey biricsan arooryo baxsan maalin boqran saaka waabaa idiin baryey reer boocmow hadda annagana waa noo baryey oo somalilaana diyaar waxaan u nahay inaannu difaacno xuduudda aanu leenahay somalilan gudoomiyaha gobolka sool cabdikariin aadan xaaji diiriye ayaa ka warbixiyey safarka ay ku gaadheen degmada boocame ee gobolka sool waxaannu halkan u nimi oo aannu xadhigga u jarnay waxa weeyaan lexejeclada aannu ka leennahay shacabka iyo dadweynaha reer somalilan ee ku dhaqan degmada boocame haddaan yar ku noqdo markii gobolka madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ii magacaabay markii aan gobolka imi waxaan go'aansaday saddex shay oo qura kow inaan dadka shacabka ku noqon gobolka sool ku xukumo cadaalad mar labaadka in dhammaan dadka beelaha wax kala tirsanaya ee walaalaha aan ka shaqeeya nabadgelyadooda ta saddexaad ee hoosta iga xarniiqnayd waxay ahayd in xuduudda aan istaago aniga iyo dhammaanba madaxda kala duwan ee gobolka sool maantana aynu taagannahay degmadii laga xukumayay xuduudda oo ahaa degmadii boocame waa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxa aan la'aantood lana tageen suurtagalna aanay ahaateen ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan waxa weeyaan mudane madaxweyne haddii la odhan jiray boocame cidima tegi karto soomaaliyaa haysata puntland baa ka talisa maanta waad aragtaayo deera kuma hirdiin waxaannu ballan qaadaynaa inaanay dhici doonin in inta shaar laydiin soo xidho oo shacabka iyaga lagu xasuuqo inaanay dhacaynin maanta iyo maalin kala toona liibaan qaran warbaahinta qaranka degmada boocame ee gobolka sool